بسم الله الرحمن الرحيم markaad eegto dadka nolosha saameynta ku leh ama ha ahaadaan kuwii hore ee dunida soo maray muslim iyo gaal ama ha ahaadaan kuwa maanta nool muslimkoodii iyo gaalkoodaba waxaad ogaanaysaa sidii Brian Tracy uu lahaa buugeen xalqadii hore ku soo qaadanay barnaamijkii fikradiya buug waxyaabo traits ah waxyaabo ay markaad noloshooda wada eegto parents ku soo baxayaad isleedahay alle la dhamaantood way sameyn jireen waxaana laga yaabaa inay sabab u ahayd horumarkan faraha badan ay sameeyeen ee saameyntan in nolosha ku yeeshay muuqaalkan waxaan jeclahay inaan idinkula wadaago ilaa iyo 5 caado oo runtii aad isleedahay markaad eegto taariikhda cudamada dunida soo martay iyo kuwa maanta noolba aad isleedahay way wadaageen caadada ugu horeysa dadka marka taariikhdooda aad eegto ay ka wada mideysnaayeen ama in badan oo kamidaba ay lahaayeen waxa weey in waqti hore kici jireen runtii markaad eegto waqtiga hore qofka inuu kaco sira badan baa ku jira waa xilliga ugu wanaagsan ee qofku maskaxdiisa ay degan tahay sidoo kale deegaanka uu ku nool yahay oo dhan baa degan oo dadku way ka hurdaan waxa inta si dheer guriga uu degan yahay hadduu reer yahay iyo hadduu cilla degan yahayba wali lagama soo kicin oo dadku xilliga hurdaday macaysanayaan markaad eegto dadka cudamada ahaa waliba kuwii muslimiinta markaad sii eegto salaada subax markay tukadaan ma ahayn dad hurdo ku laabta waxay ahayd dad ka faa'iideysta hawada degan iyo maskaxdooda xasiloon iyo guriga ay joogaan oo xasiloon fursadda ay isla wada heleen ee dahabiga ah waxay ahayd dad ka faa'iideysta arinta labaad ay wadaageen dadka cudamada marka taariikhdooda eegto ee caadada u ahayd caada maalmeedka oo waxa weey waxbay akhriyi jireen subaxii markay soo kacaan waqtiga dahabiga ah waxay uga faa'iideysan jireen inay wax akhriyaan maanta markaad eegto CEO-yada kambaniyada ugu waaweyn Mareykan iyo Yurub average ama celcelis ahaan qofka kambaniga madaxda ka wuxuu akhriyaa 54 buug waliba 54 buug ma aha buug mawaadiic kala duwan ka hadlaysa ee waxay wax ka akhriyaan wixii ku saabsan fieldigooda maxaad u malaynaysaa inay mawaadiicda kalena wax ka akhriyaan marka runtii aad bay muhiim u tahay oo qof walba aad eegto culimada islaamka dunida soo maray kuwa maanta nool galbeedka marka aad eegto dadka horumarka nolosha ka sameeyay saameynta kulli waxaad ogaanaysaa inay wax akhriyaan waliba xilliga ay wax akhriyaan waxa weeye waa waqtiga dahabiga ah ee qofku marka uu salaada subax soo kaco halkan afarta iyo barka inta badan kacaan dadka CEO-yada xilliga marka waa fursad dahabi ah oo qofku wax ku akhriyi karayo waliba mowduuca aad ku guda jirto iyo fiildiga ku guda jirto inaad wax ka akhriso ama wax positive inaad akhriso quraan inaad akhriso xadiis inaad akhriso iyo mawaadiic kala duwan runtii oo waqti laakiin looga faa'iideysan karayo maxay inuu qofku wax akhriyo waana caado ay leeyihiin dadka saameynta nolosha ku leh arinta saddexaad waxa weeye waxay caado u leeyihiin inay maalintooda qorsheeyaan runtii arinta aad bay muhiim u tahay qofku markuu subaxii soo kaco bog cusub oo noloshiisa ayaa u furan qoraxda u soo baxday waxay leedahay iga faa'iideyso maalinta waaga u bariyay wuxuu leeyahay iga faa'iideyso dadana waxay isku dayaan inay maalinka aanay qorshe la'aan ku galin laakiin waxay isku dayaan in ay noloshooda qorsheeyaan oo maalinkooda ay garanayaan waxa ay doonayaan maalinka inay kala hadhaan 12 saac ee maalinta ah waxa ay doonayaan inay kala hadhaan oo u adeegaya hadafkooda guud ay doonayaan inay ka miro dhaliyaan arinta afraad ay in badan oo kamid ah cudamadu ay ka mideysan yihiin ay wada leeyihiin waxa weey oo caado u ah inaanay kaliya ku ekaan inay maalintooda qorshe u sameeyaan ama ay maalintooda si qorsheeyaan laakiin waxay sameeyaan tobanka waxa laga yaabo maanta inuu isiraado qabso ee uu subaxa qorsheeyo inuu misna ka sii doorto labada arrimood ee ugu muhiimsan ee sidii buugga 80-20 principle aynu ku tilmaameynay siinaya natiijo 80% labada arrimood labada wax haddii maalinka uu qabto
uu uga maarmi karayo 8 kale ee waxay u qoran hadaanu qaban uga maarmi karayo haddaan si kale u idhaahdo labada wax ay siinaya 80% natiijada uu doonayo inuu qabto maalinka ma aha dad multitasking sameeya oo marba wax ku booda ma aha dad cid walba meel uga yeedha iska raaca ama waliba maanta waxa aad u badan runtii markaad Facebook fiiriso waxba lagu soo taageeraya marba mowduucaad xiisaynaysa waxa laga yaabaa inuu qofkii ku yaqaanay marka uu arko mowduuca uu daawado inuu kugu soo taageerayo maalinka waxa laga yaabaa 20 jeer in lagu jeediyo oo marba wax lagu soo marka dunidii oo dhan baa waxay isku dayaysaa in ay attention keena iyo focus keena ay kala qaadato oo cid walba way ku yeeraysaa si ay attention kaagii u qaybsato marka priority-ga aad buu muhiim u tahay inaad prioritize garaysid noloshaada oo maalinka aad tiraadid anigu labadooda wax haddii aan maanta qabto waxa weeye maalinka wixii ay kale igala tagtaba waa u qabaa arintaa way wadaagaan arinta shanaad aan ku soo gabagabeynayo waxa weeye ay cudumada ka wada midaysan yihiin marka taariikhdooda akhrisid inay sameeyaan reflection dib u eegis inay sameeyaan oo maalinkaas soo dhaaftay inay dib u eegaan maxaa u qabsoomay waxa uu qabsoomay maxaa sababay inay u qabsoomaan maxaan u qabsoomin waxa uu qabsoomi waayay maxaa sababay inay u qabsoomi waayaan maalinka maanta ah ee soo dhaaftay wax ma kala hareen cid miyay maageen cibaadaadkiisu sidoo ahaa ma cid baa hadal xun ka gaadhay maxaa dambiyo u galay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala carag gelinaya arrimaha adduunya arrimaha aakhirada labadaba qofku waxa haboon inuu dib reflection ugu sameeyo oo dib isu qiimeeyo oo dib isu xisaabiyo si uu biri u bilaabo maalin cusub runtii aad bay muhiim u tahay qofku inuu 20 daqiiqo 30 daqiiqo intaanu seexan ka hor inuu intuu fadhiisto uu isqiimeeyo cashar badan baa ku soo baxaya sidii uu lahaa yam ilaahu naxariiste aroor kasto waa baryaba waxa ku ag maray duruus hadii aanad sii akhriyin baraad imtixaaman tahay marka xilliga waxay ku noqonaysaa xilli aad dib u qiimeyso wixii maanta ku qabsoomay iyo waxaanan ku qabsoomin iyo gafafkii ka dhacay iyo wixii wanaagsanaa aad samaysay halkaas ay ugu hadho wixii aad ka baratayna aad maalinka dambe biriya ee ku bari doono inaad ku dhaqan geliso inaasan ku soo koobaya muuqaalkeena maanta inta ka horeysa inta aan hawada dib dambe iyo barnaamijka lagu kulmi doono waxaan idin rajaynayaa khayr fara badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen barnaamijkan maanta haddii aad jeclaysatayna waxaan jeclaan lahaa inaad la wadaagto asxaabta kale sidoo kale inaad subscribe garayso channelkan si aad barnaamijka soo socotana aad ula socoto. Nabadgelyo salaamaya.